الرحمن الرحيم وأنا قاعد قاسان لسر عبد القادر محمد وصمي oo ka howl galay aniga iyo saraakiil kale oo boolis iyo military iyo nabadsugu intaba isugu jirta oo ujeedkoodu ahay madaxweynihii hore oo waqtigiisu dhamaaday oo dadka iyo dalka inuu afgambiyo oo wuxuu ku jooga raba diidan oo ka soo horjeedno rabnaa inaan dadka ka dulqaadno oo ka howl galna meeshaas la galay maqribkii ilaa hadda ku sugan joogna ka soo bilow dabka weheli maxaa la jiray isaga ilaa sayidka maxaa la jiray isaga ilaa maxaa la shanta geed isgoyska maxaa la jiray bakaaraha inta ka dhaxaysa anaga ku sugan hadafkaanuna wuxuu yahay hadii la ogolaado inaan isaga tagno hadii bari waqtiga hadda joogno waqtigeeda kale uu ku gaaro farmaajo meesha ma sii joogi doono waa si uu madaxweynaha u hayb u ahaa doona waxa waaye madaxweyne farmaajo madaxweynaha hore farmaajo xilka waqtigiisu dhamaaday waxa waaye kaliya talisnimo dadka la deeyelayaan maxamed saad bara joogi lahaa dadka iyo dalka madaxweynayaal badan baa soo mareen doorashada ku imaan jireen waqtigiisu ninka dhamaadaan waa ka tagi jireen farmaajo waa diiday wax aan sharciga waafaqsanayn buu rabaa inuu dadka ku dhaqo iyo dalka raallina kama nihin waana iska dul qaadaynaa waana sida aan xabad u bilownay meel jooji doono ciidamadiinan aad sheegteen in sayidka ilaa howlwadaag aad la wareegteen yaa idin hogaaminaya أنا هجاميني أبو القادر محمد صلاح أو قاسان سرعة سراكيل كلا جوكتي ما مقعابي لكن ما مقصود دوران أسكرتان الدولة دي كم ده هاي مسوا ملتري وأكتره بوليس أكتره علمي الدولة ده أصغير يهوري كم ده يجيب حلقة دجال ما يصير مين أنا حلقة كلام ما هنا أنا أصلاً فينه كبعنا دور شغل ما نروح كلام ما هنا ما قلت حلقة دجال بعد وح خسارة أو حقينا أنا حق أنا خسارة وقاري مكسكين ما أجرى متر dhinaca kale maxaa qasaaro ku jirteen ciidamadii la wareegay ana qasaara gal inaan ka hadal xaq uma lihin ayaga jood ku soo doontaa ciidamada la wareegay howlwadaag degmada ma ku jirteen xalay howlwadaag degmada la wareegnay waxa way ma taqaana isheeg haddana madaxtooyada rabnaa la wareegay kama ali doono socodka aan hadda hawsh aan wada ma jooji doono waxaan ku jooji karnaa inaan dhibano waan in xal waan wax aan sugayno ama hadda aan raadinayno ama hadda ka horna maqlay ama rabnaa ma jiraan dadka magaaladan waan waxaan loo information is aslo ama uu ka talaslo labadii sano dadka magaaladan xabad iyo dhibaato waa ka daaleen ma isleedeen in aad u turtaan waayo ma uga roontahay gumeys iyo kaliya talnimo ma qaadanayno marka meelaha hadda ku sugantihiin ciidankiina hadda nala wadaag isgooska bakaaraha shanta geed isgooska dabka weheli ilaa sayidka dhulkaas oo ku suganaa iyo inta dhaxaysa ciidamada magaalada kale ka dagaalamaya ma isku dhammaan waa aslan hal hadaf ma walana ujeedkan ugu ana farmaajo ma isku rijo yaad gacan ka helaysan oo kale marka laga reebo inaad idinka dagaalka ka jirtiin oo Soomaaliya Korea ma cid Soomaaliya Korea soo daanu gacansiga ka furnaama ma jirto dalka iyo dadkan anagu ajnabi soo wadalmayno haddii ajnabi jirna asagu la socda waa mahadsantahay adinka الرحمن الرحيم hadda tii wariyaal Soomaaliyeedna soo booqdo doonaya xaaladda aan uga warrano annagu ilaa xalay afurkii markay ahayd shacabka deegaamadan way dhibaataysan yihiin dhibaatada soo gaadhina waxa weeyaan mid dhaqaale iyo mid nabadgelyo iyo maxaa la yiraahdaa meherado badan oo ganacsi ah oo afurkii sameeyay cunto diyaariyay ilaa hadda way xiran yihiin khasaaro badan baa ku dhacay sidii baa naga xiran dadkii oo dhan baa maalinta dukaamadii koronto la'aan biyo la'aan dhibaato badan baa jirta marka in shacabka loo gargaaro oo dadkan sariyanayaan ay u naxariistaan oo jeclaan lahayn xaafadan wax khasaara oo ka dhacay mid hal xoogaal ma wax dhinteen ma arag wax dhaawacna ma arag marka dadka muxaakaba laakiin dadku wax barakacna runtii anu run baa fiican ma arag dadku waa iska heedaw biyi markay waayeen korontadii waayeen dhinaca u socdo garan laayeen Ramadaan baa lagu jiraa soom baa lagu jiraa afur baa loo baahnaa suxuur baa loo baahnaa salaad baa loo baahnaa inta midna lama qaban marka dadku iska dhibaataysan ilaahay dhibaatada naga dulqaado dadka sariyanayaan ay dhinac isugu baxaan baa fiican dumarkii caruurta loo naxariisto waayarka loo naxariisto bisha Ramadaan la xushmeeyo halona wax kale aan sheegay ma garanayo